dagaal culus ayaa saaki waxa uu ka dhacay deegaanka Masagawa ee bariga gobolka Galgaduud. Xilligan xabad ayaa sii dhacaysa halkee la kala marayaa siday wax u dhaceen. Sidoo kale Star Warkii Soomaaliya ee caanka ahaa ayaa dib u daawan doona iyagana waxbaan ka falanqeyn doonaa Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo xaaladooda. Soo dhawaada muuqaalkan ayaan idinkugu faahfaahin doonaa like saara asxaabtana la wadaag. sida looga bartay dabeecadaha kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab weerar aroornimo waxa ay ku qaadeen deegaanka Masagawa ee bariga gobolka Galgaduud halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ah. waxa la sheegay ciidamada dawladda iyo dadka deegaankuba inay ka war heleen weerarka ay Al-Shabaab soo qaadayaan sidaas darteedna waxay jid hore oo tuulada soo gala u dhigeen ciidamo yar oo aan badnayn oo Al-Shabaab dagaal kooban la gala si ay markaasi ugu maleeyaan in tuulada looga baxay oo ay jabiyeen ciidankii dawladda. dagaal kooban kadib Al-Shabaab waxa u suurta gashay in ay soo galaan deegaanka Masagawa oo ay la wareegaan daqiiqado kooban. waxa saxigay weerar culus oo ciidamadii dawladda iyo dadka deegaanka ee halkaasi ku sugnaa ay markii horeba u diyaariyeen oo ay kor uga soo daateen Al-Shabaabkii deegaanka muddada kooban la wareeg iyagoo isla xilligan guul ayaad ka gaarteen oo deegaankii ayaad si fudud ula wareegteen. halkaasi waxa ka dhacay dagaal aad u qaraar oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana la sheegay in toos la isku dhaxgalay oo dagaalkii ugu qaraaraa muddooyinkan oo halkaasi ka dhacay. Al-Shabaab halkaasi waxa ka soo gaaray jab aad u xoogan waxaana la sheegay maleeshiyaadkii halkaasi soo galay waxa ka baxsaday in ay aad u yaraayeen maadaama shirqool culus loo diyaariyay markii hore. deegaankii dib ayaa laga wareegay xilliganna waxa la sheegayaa in la sii baacsanayo oo xabadu ay ka sii dhacayso meelo fog oo Al-Shabaabku firxadkoodu uu sii socdo. daqiiqadaha kooban ee ay deegaanka la wareegeen Al-Shabaab waxa la sheegay in ay tuulada ku dileen haweeney geesiyad ahayd oo halkaasi ka ganacsanaysay maqaayadna ku lahayd taasoo ciidanka dawladda iyo madaxda halkaasi ku suganba ay ka cuni jireen raashinka. sida caadiga ah deegaanada Al-Shabaabka laga wareego ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale gobolka Galgaduudba waxay shacabka ku qasbaan in ay deegaanka gebi ahaanba isaga baxaan. qofkii shacab ah ee ku hara halka ay ka baxaan waxay u aqoonsadaan inuu yahay murtad dhigiisu u banaan yahay. haweeneydan oo ahayd mid geesiyad ah ayaa Al-Shabaab markii deegaankaasi laga saarayay ka hartay si ay markaasi deegaankeeda ugu noolaato. maqaayadii hore ugu shidneed ayaana u sii shidneed. si la mid ah sidii ay uga gadi jirtay maqaayadda markii Al-Shabaab ay halkaasi haysteen Al-Shabaabka ayay sidoo kale uga ganacsanaysay ciidamada dawladda iyo dadka xilligan u yimid. balse Al-Shabaab ayaa saakay ku dilay muddadii koobneed ee ay la wareegeen halkaasi haweeneydaasi geesiyadda ahayd Allah u naxariiste. dagaalkaasi qasaaraha ka dhashay iyo dhimashadu inta ay kala tahayba wali ma cadda waxaase ila aan la xiriirnay ee xaqiijiyeen in ciidamada dawladda dhimashadoodu ay gaarayso 3 askari Allah u naxariiste Al-Shabaabna ay tirabeel yihiin. xogta rasmiga ahna waxaan ka sugaynaa dawladda. dhanka kale xalay waxa uu muuqday habeen uu bilowday Star Warkii 2019 ilaa 2022 taas oo ka dhalatay kadib markii uu Axmed Madoobe soo saaray ama uu magacaabay guddiga doorashooyinka. Axmed Madoobe ayaa si toos ah ugu jihaystay in uu isagu sameysto doorashadiisa halka Xasan Sheekh iyo kooxdiisu ay quudareynayeen in ay ku qanciyaan inuu la qaato fikirkooda ah in hal sano oo muddo kororsiga ku darsado kadibna 2025 bisha November maamul goboleedyada oo dhan doorasho qof iyo cod lagu sheegay loo qabto. Axmed Madoobe ayaa arrintaasi iska diiday waxaana uu hadda cagta saaray inuu isagu sameysto doorashadiisa. 2019kii Axmed Madoobe markii uu doorashadan mid lamid ah uu sameysanayay waxa dagaal culus la galay madaxweynihii xilligaasi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Jubbaland waxa uu geliyay go'doon isagoo dhan walba ka cunuqabateeyay si uu Axmed Madoobe ugu qasbo in uu markaasi tartan furan ka qabto Jubbaland si markaasi musharax dawladdu wadato halkaasi ugu soo baxo. Axmed Madoobe ayaana arrintaasi uga adkaaday Farmaajo ugu dambeyn. Axmed Madoobe oo tan iyo markii Jubbaland la aasaasay madaxweyne ka ahaa markasta oo uu doorasho gelayo waxa uu dagaal adag la galaa dawladda dhexe. mar kale Xasan Sheekh Maxamuud ayay iswajahayaan oo dawladdu xalay warqad ay soo saartay waxay ku sheegtay Axmed Madoobe doorashada uu qabsanayo inaysan aqoonsanayn wax jirana aysan ahayn digniinna way u dirtay in uu halkaasi ka horiyo
colaad Jubbaland ka dhacda. Axmedoobe shidanaba shidan ayuu taagan yahay doorashadiisa ayuuna hore u sii ambaqaadaya. Waa la arki doonaa halka ay xaaladaasi ku dambeyso.